maanta barnaamijkeena insha Allah taala waxaan kaga hadli doonaa khudbadii uu jeediyay Sheikh Maxamed Cabdi Umal xafidahullah oo uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda iyo wixii nooga baxay khudbadaas. waxaan arkay dad badan oo ka falceliyay iyo meelo badan oo lagu soo qoray iyo waxay noqotay khabarul yawm bay noqotay khabarul yawm marka waxa khasaba in wuxuu laga yiraahdo khudbadu duduub waxay ku saabsanayd siyaasadda waa waxaan aad u jeclaa inaan arko wadaadadu inay siyaasadda soo galaan oo ka hadlaan waa wixii aan u bilownay campaignkan iyo magaranaysaa kacaankan ah in wadaniyadda iyo Soomaalinimada aysan wadaadadu marti ka ahaan siyaasaddana aan faraha looga qaadin dad ka shaqaysta oo ka qowlaysta أنا لو دين ساحة أو فراغ وصندعين علماء أي كم قنتها ساحة مركا أرينتاس قدك كواد هنيئا لك يا شيخ وحالنا يسودو وأنا كم هتصنتها إناد كهذا الشو أريمها مسيرجة ننحل كسأة ومسؤولية يعليس كذا دريمية ما أنت كمت دقو كرسي صوماليات يا ما أنت عديها كمدة قال لمسيء كرسي وقفريو أما وفولو لكن حل كسني ما جرت حل بان لقرنا إن سيدي سبا وحوي هي مركا واحد وقاتا كرسي ما باقي هذا نولورينا ما باقي هذا شيخو مركا مالنتي دويت سياسة دي وفرح الله سو قلي وحالينا هاي سودو شيخ الله كبركي وإنتاس وأدو جلسي دواتد وقضب كي جلواد وعنو رأينيو شيخ وإنتاس وأدو جلسي دواتد محاولة جهرة يعني شيخو لو روح يبض بكارل مركب كواد مدحوينه الله هذا من كاس قداش إذا فديو واللي يرى فرماجو أيو الله هذا قداش إذا فديه كان هذا كفر دي مركو إيماني صعب كاد أوتنتنا واحد تنادين فرماجو إيجي فرماجة يجي ما أنت نوح ويا هالكاس المريسال ورمدينا ملب إدين داقسين مايو مدينة بنك عقار إدين كتلق مايو نن الشغال إدين صنصار مايو نن الظروفه ننكتشواب مايو يا آفد إدين هيسة كتشواب مايو أن إدين شيء دنتنا أينو قرنو فتن كان أنكفو قانو يلا ينا استعمال هذا الشيخ أمل iyo aniga iyo dadka aanu isku reerka nahay intaanu siyaasad ka hadalno labada nin oo gadaashayda fadhiya labadaas hadii aan wax ka sheegin ma garanaysaa oo labada nin aanan soo qaadin hadalkaygu macna yeelan maayo unsur akhaka zaliman aw madluman labadan qabo horta sheekh kabilow kuween ninkan waliba adiga ku sii xiga kabilow sheekada ninkan la yiraahdo Ahmed kabilow ninka ugu mujrimsan inta siyaasadda ku jirta waa ninkan waana nin diinta akhristay wadaada isku reer baynu nahay laakiin ninka ugu mujrimsan dhiig baad ka hadashay sheekh dhiigii ugu badnaa ninka daadiye waa kan ninka dadka qabyaaladeeyay waa kan ninka looga qaxay gobolkii uu madaxda ka ahaa waa kan ninka ay ka dhismilaadahay dawladda Soomaaliyeed waa ninkan ninka saddexdii madaxweyne la soo dhaafay oo kan ugu dambeeyay midna uu ka shaqeyn waayo waa ninkan qabo adaa dadka ugu xiga aniga adaa iga xiga anigu dad badan oo kale aan ka xiga asaasan wuxuu yani toos ugu cadeeyaa warka hadda adaa naga xiga qabo oo waxyaabaha uu ku dhaqmayo qabaa'ilka iska horkeenkooda kala furfurkooda xukun xoog lagu joogo tusaalayaasha aad soo qaadatay oo dhan ninka ay khuseeyaan waa ninkan ma aha ninkan way marka hadalkaagi macnihii baa ka lumaya sheekh hadalkaagi macna la'aan buu ku soo dhacaya haddaad inta tiraahdo xukun baa la boobay aadan ninkan sheegin haddaad inta tiraahdo kursi baa la isku dhajinaya aadan ninkan sheegin haddaad inta tiraahdo ma garanaysaa dhiig baa la daadinaya aadan ninkan sheegin haddii inta tiraahdo dadka la isku diraya oo la qabyaaladaynaya aadan ninkan sheegin warkaagu macna yeelan maayo
ninkan nin agentiya way sheekhu waa ogyahay ninka khariban oo ummaddu ay ka dhaqaaqi lahayd waa ninkan ninka u baahan hadalka kulul oo canaantay waa ninkan ninka dhiigyacabka oo yiri meesha mayd baan la soo galay mayd baan kala baxaya waa ninkan ninka xooga wax ku haysta waa ninkan ninkii ma garanaysaa doorashada isagu is sharaxay oo is doortay way xeer kasta iyo sharci kasta dalkan uu leeyahay ninka goynaya waa ninkan kiyaatiga ninka u shaqeynayo badeeni ay hortiisa intay alaabadii ku jijabiso aan ka hadlay waa ninkan ciidamada kiyaanka ninkii u dhex fadhiyaan wadanka iyadoo xiriirkii la kala goostay waa ninkan come on man dadku waa ku daawanaya sheekh ayagii baa tahay madaxa noo saaran tahay ma rabna inay dhaawac ku soo gaaro waxaan rabnaa ku noqo khudbada jumcadahan soo socota gal sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaan ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilay in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan adaa mas'uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal tanaazul kursiga lamadan dhalanin kulamana dhalanin wuxuu yiri waa inaad tanaasushaa waa inaad tanaasushaa oo su'aashaan weydiinaya waxay tahay sheekhana laga rabo inuu ka jawaabo liman yuu tanaazulaa cidee buu u tanaazulaa ilaa isaga waa la doortay isaga xukun buu ku joogaa meesha iyo wuxuu ku joogaa doorashu ku joogaa xoog iyo boob iyo meesha kuma imaan cid qof ay isku haystaan oo shakhsiyaho gaaraho laba nin oo is haysto leeyahay isu tanaazula na ma aha waa isaga oo doorasho diyaar u ah dad aad u tiro badan oo raba inay la tartamaan oo ay xukunka ka qaadaan qofkee buu marka u tanaazulaa tusaalaha aad soo qaadatay yaa sheekh oo ah xasan ibnu cali ibnu abi taalib radiyallahu canhu oo ah sibtu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sayida shabaabi ahli aljannana ka mid ah labadii sayid oo jannada ka mid ah oo u tanaazulay mucaawiya ibn abi sufyaan oo saxaabi ah radiyallahu canhu oo xukunka ku haystay laba nin oo xukun isku haystay ahay inuu midkood tanaazulo waa macquul waa wax la garan karo yuu tanaazulaa ninkan ma wuxuu tanaazulaa xasan sheekh ma wuxuu tanaazulaa sheekh shariif ma wuxuu tanaazulaa cabdiraxmaan shakuur ma madasha oo dhan buu u tanaazulaa ma wuxuu tanaazulaa deni ma wuxuu tanaazulaa axmed madoobe yuu tanaazulaa shiikha warkiisu waa qiyaas maca alfaariq wey laba nin oo ishayo xukun isku haya iyo nin xukunkii haysta laakiin ogol in lagula tartamo oo laga qaado ama uu qaato oo tartan diyaar u ah oo tartankii laga hortaagan yahay tanaazul wax la fahmi kara maaha kelmaddaas marka kelmad cidla ku dhacday bay labo wuxuu la hadlay qolada madasha ah fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacowday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cidduu doonuuna siiyaa qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa'u wa tanzicu almulka miman tashaa dagaal iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursigaa lagu gaadho midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya waa midda labaadee kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado 10na ma qaado 7na ma qaado hal buu qaadaa kursiga halka qaada waa midkii Soomaaliya intay isku laysay la qaybiyay oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyay adiguna madaxweynaha tahay kursigii ayaa markii uu ku wada filaan waaya waxay noqotay in 10 kursi oo kale la soo saaro oo lagu qanciyo la yiraahdo landiskaana madaxweyne fulaan
kaana madaxweyne fulaan kaana madaxweyne fulaan war kursigu waa mid ilaahayna nin buu u qoray هذه حقيقة بيها كما دبعاوها مدة الصدحات اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي رادي سو كوهن قودي باتشرته دنبنا كالراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي دات رقي دال كان سو بربوريي كرسي الرادين آوي انت كرسي كغفري ستي ويريهن كل قودنا وحي قاتين وحي دلك كرعي إلهي بين الله ارتقيان ميدان كوانا قادنين ميدان وحكو قادنين وحان ليا هاي لقد قبيالة دايا هذا الكحنفت لدايا فتنتك انت هذا كفوقادا سي مسؤولية دي كتشرت الرقمة يا ذلك أطرا ضدك أطرا ظروفت أمد هيسة أطرا إلهي كبقى إلهي كبقى قبيالة لقوع العلينيو إيه لكعنيو إيه لقوع هالليو إيه لقوع دارنيو ورصوتي هالكاينة دكتي معه ورصوتي أنكوهم قوني معه ورصوتي أنكو تشبني معه wargoormay shaati kale inoo soo xidhatay 30 sano kadib goormay shaati kale soo xidhatay soo iyadii uun ma waa iyadii laakiin wajiyada isbedelay shalay waxay ahayd generaal fulaan buu ahaa shalay maantana waa siyaasi fulaan laakiin wax kale isbedelay ma jiro waxaan leeyahay fitnaha abaabulina aafana dalka iyo dadka sabab ha ugu noqonina sharna horseed ha u noqonina fitna lama dhudhumiyo sharna la iskuma dhereriyo waa laga fogaada waana laga taxadaraa ka hortag buu leeyahay ka daba tag male aafadu haday hurtay hulaacadana nin walbay saamaysaa duruusteedana waanu haynaa waxaan leeyahay oon ugu dambaysiinayaa kelimaadkan qolada ku leeyahay ummadan aad isu keenaysaan leedihiin mudaaharaad sameeya oo saaxadaha iyo banaanada aad isugu keenayseen leedihiin dastuurka noo ogol war waxaan idin leeyahay meesha waa muqdisho war waxaan idin leeyahay muqdisho idinka naga yaqaana war bishiiba intaasoo qarax baa ka dhaca war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa war magaalada hubbaa dhexdeeda yaallo ku faafsan war kooxa dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwa kale ha ahaadeen war way fududahay dadka isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kada taxabadayn karo layn karaya war ayagaydan kontarooli karaynin oo haday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacba imaanaya hanti la burburiyaa imaanaysa mana kontarooli kartaan dawladina ma kontarooli karto been waay ya dawladaha waaweyn baa kontarooli kari waay mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxa ku jira dad xilma kas ah dad waxa ku jira wax booba isaabaad ijraan baa ku jira ya war Mareykan baa kontarooli waay oo Faransiis baa kontarooli waay oo Ingiriis baa kontarooli waay oo dawladii xoog badnaa baa kontarooli waay ummadu haday dhaqaaqdo lama kontarooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya mas'uuliyadda qaadi doona isweydiiya yaa mas'uuliyadda qaadi doona markaad ummadan ku khamaaraysaan oo kaliya ujeedadiinu ay tahay inaad ku abuurtaan kaliya pressure aad ku abuurtaan qolada idinka soo horjeeda oo waxa la yiraahdo muxuu ahaayay caalamka aad abuurtaan pressure ku abuurtaan ujeedadiinu inta tahay waxay dhici kara iyo dhiiga daadan kara iyo aafada iimaan karta iyo hantida burburi kartada aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiiga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan bimujarrad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaan dastuurka qaba waa xaq dastuuri ah
war dastuurkan qabay waa kee ma kii gaaladu idin dejisay Soomaa kii idin kala qaybiyay Soomaa kii landhiska idin ka dhigay Soomaa dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka Ilaahay iyo sunnadii nabiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba war ay geeyaan buu ku yiri aad buu ugu mahadsan yahay sheekhu hadal ay geeyaan buu ku yiri wuxuu yiri kursigan aad u ordaysaan qof baa heli doona miduu yahay laba yaqaan marka bal horta mahlan isdajiya qodobka labaad joojiya qabyaalada iyagoo isku wada reer hal mar inay hal nin wada ataagaan oo ay muujiyaan qabyaalo yaraan tollaayay hana loo soo baxoy ha lagu buuqoy ha lagu kacoy khalad bay ahayd sheekhu inuu ishaaro qadiyadaas oo taasa ugu sheegana wuu ku fiican yahay qodobkii hore horta intaana ka bixin madaxweynaha Farmaajo inkastoo aan ogahay inuu nin muxtarama yahay nin caqli badan yahay nin aqoon-yahana yahay haddana waa nin u jilicsan culimada oo aad u ixtiraama oo qadariya waxaan kala talinayaa fikirka tanaasul inuusan u fahmin xukunka intaa iska tuurtay dhaqaaq maxaa yeelay halkaa waxa ka dhalanaya firaaq baa ka imaanaya yaa dalkii xukumaya cidina marka waa loo sinaanaya maxaa dhacaya fawdaa dhacaysa warkaa inuusan maqlin oo uusan dhegaysan baan kula talinayaa Farmaajo qodobka aan ku soo noqdo marka aan hadda gacanta kula jiray oo ahaa siyaasiyiinta inay arrinta qabyaaladeeyaan inuu sheekhu kala hadlo aad buu ugu mahadsan qabyaalad looma baahna Soomaaliduna waa ka kortay waana ka gudubtay khaasatan reerka ay intoodii buuqaysay oo dhan ay ka wada yimaadeen reer bislaaday weeye reer bartay qabyaaladii waxay tarto iyo waxay yeesho weeye reer wado ay ka furan tahay qabyaaladeed maaha muqdisho magaalo qabyaaladeed ma aha waa dhaaftay waxaas magaalo Soomaaliyeed way dadka ugu badan oo jooga waa dad ka kala yimi meelaha wadanka oo dhan afarta koone dadka ka yimi wadanka ayaa xamar u soo shaqo tagay oo ku nool oo degan oo ka shaqeysta oo ka ganacsada oo wax ku barta marka way ka bislaatay xamar waa bislaatay baqdin badan igama hayso reer xamar in lagu qanciyo qabyaalad qaar badan oo meelahaas durbaana u tumaa jira shaqayn weydi la dhageysan waa intay isu tageen intaasoo nin iyagu ah oo ay mikrafoon qaateen oo ay media istaageen oo idaacad kasta u yeerteen oo ay oohiyeen oo isbihinbihiyeen baa loo soo bixi waayey oo dheen hana loo soo baxo bay waxay waayeen dhowr boqol oo qof waayey 5 jeer isku dayeen hataa lacag bay bixiyeen waxba waa waayeen hataa waxay isku dayeen inay qalalaasi kiciyaan oo intay rag qoryo u soo dhiibeen dhowr incident ama dhowr jeer bay buuq kiciyaan reer xamar waa ku diid waa laga diid arrintaas marka way fiicneed sheekhu inuu ishaaro waxaa kaloo aan aad uga helay oo qodobka saddexda arrimoodba way ku jirtay saddexda qolo uu la hadlayay shacabka oo uu yiri war yaan laydinku dangaarin oon laydinku danaysan oo siyaasadda jaranjaro la idinka dhigan iyaduna waa qabyaaladii arrinkaasuna waa arrin aad u fiican oo aanu muddo wadnay dadka in laga saaro qabyaaladda oo loo saaro wadaniyadda waan ku soo noqon doonaa qodobka wadaniyadda sheekhu wuxuu khudbadiisu saas u fiicnayd oo saa u quruxda badnayd oo shaxshaxdaas ahayd oo qodobkaas yaroo aan dhinaca kaga qabsaday maahee aan waxba kale oo shida ay ku jirin cillad weyn baa ku jirtay cillad weyn cilladda ugu weyn oo ku jirtay waxa weeye warkaagu macna ma yeelanayo haddaad tahay sheekh umal iyo aniga iyo dadka aanu isku reerka nahay intaanu siyaasad ka hadalno labadaa nin oo gadaashayda fadhiya labadaas haddii aanan wax ka sheegin ma garanaysaa oo labadaa nin aanan soo qaadin hadalkaygu macno yeelan mayo unsur akhaaka zaaliman aw madluuman labadaan qabo horta sheekh ka bilow kuweena ninkan weliba adiga ku sii xiga ka bilow sheekada ninkan la yidhahda Axmed ka bilow ninka ugu mujrimsan inta siyaasadda ku jirta waa ninkan waana nin diinta akhristay wadaada isku reer baynu nahay laakiin ninka ugu mujrimsan dhiig baad ka hadashay sheekh dhiigii ugu badnaa ninka daadiye waa kan ninka dadka qabyaaladeeye waa kan ninka looga qaxay gobolkii uu madaxda ka ahaa waa kan ninka ay ka dhismilaadahay dowlad Soomaaliyeed waa ninkan ninka saddexdii madaxweyne la soo dhaafay oo kan ugu dambeeyay midna uu ka shaqayn waayo waa ninkan qabo
adaa dadka ugu xiga aniga adaa iga xiga anigu dad badan oo kale aan ka xigaa saasaan wuxuu yani toos ugu caddeeyaa warka hadda adaa naga xiga qabo oo waxyaabaha uu ku dhaqmayo qabaa'ilka iska horkeenkooda kala furfurkooda xukun xoog lagu joogo tusaalayaasha aad soo qaadatay oo dhan ninka ay khuseeyaan waa ninkan ma aha ninkan wey marka hadalkaagii macnihii baa ka lumaya sheekh hadalkaagii macno la'aan buu ku soo dhacayaa haddaad inta tiraahdo xukun baa la boobay aadan ninkan sheegin haddaad intaad tiraahdo kursi baa laysku dhejinaya aadan ninkan sheegin haddaad intaad tiraahdo magaranaysaa dhiig baa la daadinaya aadan ninkan sheegin haddii intaad tiraahdo dadkaa la isku diraya oo la qabyaaladaynaya aadan ninkan sheegin warkaagu macno yeelan mayo cilladaas waa cilladaadu wey waxaa ku xiga ninkan kalea ku xiga ninkan iyo ninkaanu waa labada nin oo hadda lugaha haya magaranaysaa qaranka soomaaliyeed waa labada nin oo ay shaqayn la'dahay doorasho in la galo sababtood waxaad og tahay sheekh nimankaanu inay dad kale u shaqeeyaan waxaad og tahay haddaadan ogeyn hadda annagaa kuu sheegayna ma qarsadaan kenya inuu ninkaanu shaqaale u yahay imaaraadkuna ma qarsadaan inuu ninkaanu shaqaale u yahay ma qarsadaan labadooda midna ma qarsado dowladnimadii soomaaliyeedna waxay khalkhal ugu jirtaa labadaa nin inay ka shaqayn la'dahay ninkan iyo ninkaas labadaa nin bay ka shaqayn la'dahay labadaa nin innagaa dadka ugu xigna aniga adigaa dadka ugu xiga anigu waa bareeray tolkay in badanoo ka mid a igu nacday laakiin that's the fact markaad ka hadlaysid madasha murashaxiinta oo ah man laa yuqadimu walaa yu'akhir laysa lahu min alicraabi bishay laa maxalla lahu min alicraab doorashada laga hadlayo iyo isjiidjiidka hadda yaalla iyagu meella kagama jiraan saxiixayaal maaha cid ay xukumaan lama arko niman shacaboo raba inay tartamaan wey inaa iyaga saa u karkarisid qabyaaladooda sheegtid waxay ku khaldan yihin u tilmaantid nimankan odayaashaana aa ka tegtid mawjada hadalkaagii macno la'aan bay dhigaysaa khudbadaadii waxay soo baxaysaa waxaan macno lahayn marka qaybtaasaa kaa dhimanayd waana qaybta ugu muhiimsan tusaalaha soo qaaday tusaale ka fiican baan kaa siinaya nebi maxamed sal allahu alay salam markii uu galay dagaalkii beder oo laysu soo baxay oo layska hor yimi waxay samaysay quraysh waxa la yidhaha mubaaraza rag baa horay u soo baxay laba ninoo walaala ah cutba iyo shayba ibna rabiica baa horay u soo baxay waxay yidhaahdeen iyo wiilkoodii weliid ibnu cutba mid weliid iyo wiil iyo aabihiis oo cutba ah iyo adeerkiisoo shaybaa baa horay u soo baxay 3 nin oo noo soo baxaan rabnaa mubaaraza waxaan ognahay 3 nin oo ansaara u baxay 2 riwaayadood baa jira riwaayadu waxay tiraahdaa nebigaa celiyey sal alla ly slam oo yidhi noqda riwaayad kale waxay tiraahdaa nimankii 3da ah baa diiday waxay war nimankaan ansaar annaga waxba nagama dhexeeyaane raggii aanu is ahayn oo isku tolka ahayn message weeye waxa loo dan leeyahay waa waxay af ingiriiska lagu yidhaha opticska weye opticska raggaanu isku qabiilka ahayn noo soo saara maxamed sala allahu alay wasalam noo soo saar raggaagii baa layidhi markaasuu yidhi istaag xamza adeerkiis wey nebiga adeerkii caa'iladiisiibuu soo saaraysna istaag buu yidhi xamza waa istaagay wuxuu yidhi istaag ninka la yidhaahdo cali istaag buu yidhi calina waa istaagay wuxuu soo saaray ninka la yidhaahdo cubayda ibnu cabdilmutalib cubayda oo cabdilmutalib awow u yahay oo isaga nebiga sal alla ly slam in adeerkiisa riwaayad kalena ay leedahay mutalibba awowihiisa na wuu soo saaray cubayda ibnu alxaarith ibnu mutalib riwaayad kalena cubaydata ibnu alxaarith ibnu cabdilmutalib bay leedahay 3daa nin buu soo saaray marka waa nebiga in adeerkii kale iyo nebiga adeerkii 3daas u soo saaray 2 wiil iyo adeerkood soo baxuu yidhi waa soo baxeen 3dii ninba 3dii waxaa dilay cubayda iyo ninka la yidhaahdo weliid waa isdhaafsadeen 2 nabar bay isku dhufteen labadii nabaroo waa dhaawacmay cubayda cali bn abi aalib radi allahu canhu iyo xamza oo labadoodii nin ka takhallusay baa ugu yimi oo kii kalena dilay 3daas markii laysu saarayey message baa la dirayey haddaad tahay muxamed sal alla ly salam qurayshna aad la diriraysid dee keensan raggaaga annaga ha noo soo kaxaysan rag kale hadalkaasaa kaga munaasibsan tusaalaha aad soo qaadatay haddaad tahay sheekh maxamed cabdi umal
siyaasadda Soomaaliyana aa ka hadlaysid siyaasadda waxa isku haya saddexdan nin oo gadaasheeda taagan shantii maamul goboleed labadaas nin oo aad u jeedid labadaa nin Axmed Madoobe iyo Siciid Deni marka laga reebo saddexdii kale waa diyaar waxay diyaar u yihiin way saxiixeen iyo maamul goboleedkii iyo maamulkii gobolka Banaadir afartan nin waa diyaar afartan nin iyo madaxweynihii oo isla socda oo isku dhinac ah iyo labadaa nin oo hortaagan oo labadaa nin ay yihiin laba nin oo la garanayo waxa ay ka socdaan iyo meeshay ka socdaan baa is hortaagan kelmadaadu marka macna ma yeelanayso qof miskiin oo saddexaad inaad weerartid oo isagu shacaba oo aan macna lahayn oo xukun aan hayn oo meelna aan kaga jirin hadeerna ku dagaalamaya meesha madasha hana la fariisiyo iyo leedin fariisin mayo kursiga ku fariisanaysaan maxaa ku fariisanaysaan meesha maamul goboleed iyo dawladda federaalka bay soo fadhiya idinku maamul goboleedkee xukuntaan mid cirka ku yaallay xukumaan xukunkaan rabaa haddii albaabkaa loo furo la yidhahda ha loo tanaasulo ha loo furo albaabkaas si loo xiro la garan maayo waxa weeye marka koowaad sharci maaha oo dastuuri maaha oo nimankii sharci kuma socdaan marka labaad haddii albaabkaa la furo liya nin kasta oo diyaar ah oo raba inuu murashax noqdo ha soo galo 100 baa diyaar 100 qof baa diyaar meeshii fawday noqonaysaa fawdana wax ka soo bixi mayaan 5 nin baa laysu keeni lahayaa 10 nin wax ka yar baa laysu keeni lahayaa markaa tiraahid marka albaabka loo furo haddii la yiraahdo albaabka loo furo oo ha loo tanaasulo adeertay meeshii waxa ka dhalanaysa dawladnimadii baa waxay galaysaa qiilqiil iyo magalaysa khatar galaysa marka baasha lubbigeedii baa ka maqnaa dhuuxeedii laakiin shiikhu wuxuu yimi afaafkii hore u yimi tallaabuu horey u soo qaaday tallaabadaasu waa the right way ama good way ama ariiqu saxiix buu khutwa u qaaday shiikhu oo ah inuu cod ku yeesho waana leeyahay waana mudan yahay ehel buuna u yahay inuu cod yeesho oo halkaa ku yeesho laakiin khudwadaas waxaan rabaa tan khudbadii ugu horreysay ahayd qofka markay bahashu ku cusub tahayna dhaadhiciisa badan xabaddaa waa lagu daynayaa laakiin shiikh horay u soco bahasha horay u gal weli waxaan ku talin lahaa inaad kaxaysatid culimadii Soomaaliyeed daligeed inaad qaadatid culimadii Soomaaliyeed who is who inaad waqooyi ka keentay raggii joogay Puntland ka keentay raggii joogay Jubbaland ka keentay raggii joogay Koonfur Galbeed ka wacatid Galmudug ka wacatid Hirshabeelle ka wacatid xamar ay isugu keentay raggii joogay Muqdisho aad ku darsatid aad meesha tagtid nimanka shanta ah toddobada labada nin oo dawladda federaalka ka socda iyo maamul gobolka Banaadir iyo shanta 8 way 8 nin inta hor fariisataan idinka hor fadhiya aad tiraadaan heshiiya right now go'aan gaara meesha rataan idinku ku ballansada inta isugu yeertaan delegate inta ka haysataan oo isugu yeertaan hortiina inay ku niqaashaan oo ku doodaan oo kii gardarna aragtaan oo tiraada ittaqillah ummadda ka fariiso kii idinka diida markaa fatwa sharci ah ka soo saartaan marka horena aad ka saxiidaan wixii aad goysaan ee ku qanacsan raallina ku yihiin arrintaas ayaa culimada booskoodii ah oo bannaan uma baahnid in lagu arko nin xiyaadi aan ahayn qolo yani nin dhinac jiray aan ahayn nin dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ka ah siyaasadda reer tolkiis oo labadaa nina iyo siyaasadda qolyaha kale ninkan inkastoo aan isku wada reer tolnahay haddana labadaa nin baa inoo ka sokeeya aniga adiga adigu aan labadaa nin wax ka qaban weyno hadda ninkaan af kuma lihin weliba waxaan arkayay nin wadaado ay ninkaan isku reer yihiin oo kuu jawaabay waa kaa gar helaya awe tolkaa maa la heshid buu ku yiri hayna adeerkay ugu soo farabaxsanaysa qabyaalad baa bilaabanaysa ma ujeeda waxaan mar walba ka hadli jiray baa waxay ahay qofku wuxuu miisaan hadalkiisu yeelanayaa nin kasta oo waxtar ah nin kasta oo waxgal ah inuu tolkii horta la hadlo intu cid kale la hadlay reerkiina la hadlay wareerka iyagoo waa khaldantiin waradadka daaya waxaa kaloo muhiim ah oo shiikha aan ka qarsoonayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u wada jeedaan labadaa nin inay yihiin labada nin oo ay wax ka dhismila yihiin labada nin oo mar kasta inta loo tanaasulo ka baxa hadhowna ku eedeeya annagaana loo ka baxay dadka ku eedeeya waa labadaa nin weliba ninkan shiikha ay ilma adeerka yihiin oo iska kaysii xigaan annagoo dhan baa ilma adeera ay iska kaysii xigaan ninkan nin agentiya wey shiikhu waa ogyahay ninka khariban oo ummaddu ay ka dhaqaaqi laadahay waa ninkan
ninka u baahan hadalka kulul oo canaantahay waa ninkan ninka dhiigyacabka oo yiri meesha mayd baan la soo galay mayd baana kala baxaya waa ninkan ninka xoogga wax ku haysta waa ninkan ninkii ma garanaysaa doorashada isagu is-sharaxay oo is-doortay wey xeer kasta iyo sharci kastoo dalkaanu leeyahay ninka goynaya waa ninkan kenyaatiga ninka u shaqaynayo baddeenii ay hortiisa intay calaabadihii ku jijabiso aan ka hadlayn waa ninkan ciidamada kenyaanka ninkay u dhex fadhiyaan waddanka iyadoo xiriirkii la kala goostay waa ninkan come on man dadku waa ku daawanaya sheekha iyagii baa tahay madaxa noo saaran tahay ma rabna inay dhaawac ku soo gaaro waxaan rabnaa ku noqo khudbada jumcadaan soo socota gal ku baaq inaad adigu shir qabanaysid culimada muslimiinta soomaaliyeed meelay joogaanba rag ka rikruud garee rag hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel amar sii weliba markaana waa marka waajibka tahay wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa markay waajibka tahay way islaaxu ma isdiririn weli laakiin baqdin baa laga qabaa oo suurtagal wey in dagaal dhaco markaan way marka loo baahan yahay fa aslixuu baynahumaa taqacu cala alculamaa amarkaas wujuubka ay wax ku dhacaya culimadu ku dhacaya iyo ulul amriga idinkaa ulul amrigiiya sheekh waxaan kuleey marka koowaad haniyan lak inaad soo gashay saaxadii inaad ka hadlayso weliba adoo magacdhabaya rag oo magacaabaya labada qoloba waad magacowday madasha murashaxiinta waad magacowday waa 10 nin madaxweynaha ma garanaysaa jamhuuriyadda federaalkana waad magacowday farmaajo baad tiri waxaan kaa rabnaa labadaana inay magacowday magacooda inaa ugu yeerto tiraahdeed warqaddii waa laydinka karlayaa saxiixa anaa idinka soo saxiixaya xamar ma tegi karno uma baahnid inaa xamar tegtid warqaddii baydhabo iyo September 17 wixii la gaaray oo idinku aad qorateen saxiixa hortayda ku saxiixa ka qaad gee warqadda gee xamar taariikhdaad gelaysaa historygaad gelaysaa ninkii xalliyey mushkiladii baad noqonaysaa macnaad yeelanaysaa dalkuna waa ka baxayaa isdulfadhigan waxaan kaloo rabaa inaan shiikha ka saxo wuxuu yidhi arfarmaajo ii geeya maxay ku dambaysay shiikh waxay ku dambaysay siciid cabdullaahi deni iyo farmaajo hadday ku tartamaan hadda garoowe inuu farmaajo qaadayo waxay ku dambaysay kismaayo haddii bool la dhigo bool oo la yidhaahdo u kala codeeya axmed madoobe iyo farmaajo u kala codeeya inuu farmaajo qaadayo shacabkii soomaaliyeed meelay joogaanba inay la socdaan dal iyo dibadba inay ninkaas jecel yihiin haddii hadda cod la qaado codka shacabka la qaado shacabka muqdisho isagu uu mas-uulka ka yahay la qaado waxaan u leeyahay mas-uulka ka yahay soomaaliya oo dhan mas-uul ka yahay maxaan u leeyahay mas-uul buu ka yahay maamul goboleed baa laynoo sameeyey sida shiikhu sheegayna qabiil baa loogu talagalay dalka in loo jarjaro gaalaana ka dambaysa aan raalli ka ahayn soomaaliya inay dhaqaaqdo markii la keeno dhaqaalaha waxaa loo qaybsadaa 5taas nin oo maamul goboleedyada ah iyo intii soo hartay dowladda federaalka ay leedahay markii qolo walba waxoodii la siiyo ninkaanu wixii uu isaga qaybtiisii uu helay oo uu helay dowladda federaalka ah inta ay dowladda federaalka ay degan tahay waxbuu kaga qabtay war cayr baa la bixiyaa cayr sheekh cayr buu bixiyaa ninkaanu kuwaan dadkay boobaan oo xoolahooda qaataan ma arkaysaa oo bangiyadii hadda riboodkii un-ta qolada liya monitoring group ay soo saartay siciidani 9 milyan iyo barkii loogu dhiibay covid-19 inuu kagala tacaalo gobolka puntland akoon khaasu ku shubtay welina waa la daba socdaa warbaa wuxuu sheegaya inay baloogeen iyagu oo akoonka ay diideen lacagta in laga bixiyo ma ujeedaa waana soo bixi doonaa monitoring group ninkaana iska badaaba waad aragtay adaa nairobi jooga 9 cimaaradood buu ka dhisnay ninka ugu yani boobka badan wey ninkan muxuu sameeyey kan kale cayr buu bixiyaa arday iskuulla friya dhigataa jirta xamar ka jirta waana meesha keliya ay ka jirto caafimaad friyay bixiyaan oo dhowr isbitaala waxay dhisaan wadooyin lacagtoodii waxay geliyeen dalkii bay geliyeen waxay dhiseen wasaarad kasta iyo xarun kasta oo dowladdu lahayd baa la dhisay oo waxaa laga dhigay meesha ugu quruxda badan yacni ninkaanu wixiisii ummaddu wax ugu qabtay that's why ummaddu u jeceshahay that's why u rabto ummaddu inuu isagu soo noqdo waa that's why ay nimankan u diidan yihiin one man one vote in la qaado one man one vote waxay u diidan yihiin because waxay og yihiin 100% inuu kusoo noqonayo xataa tii dad banayd oo iyagu ay dalbadeen baqdin ay ka baqayaan marka xabadaasna waa kaa khaldan tahay sheekh arfarmaajo ii geeya maantay ugu xoog badan tahay maanta ugu taageero badan yahay madaxweynuhu haddaadan ogeyn nairobi 6ka masaajidka aad adigu imaamka ka tahay dadka jooga soomaalida ah waxaad tidhaahdaa maalin jimcada soo socota istaaga dhe inta farmaajo taageersan
انت كسو horjeedana istaaga dhe fariista dhe isu fiiri marka inta kaliya samee meel kale ba aadi masaajidka sigiska ku tijaabi adigu khudbadaada soo socota waxa weydiisaa ninkii farmaajo taageersan oo istaag ama waxa tiraahdaa inta ka soo horjeeda ha istaagto markaas wax ku bixi doonaan waana meel kasta caalamka oo dhan markaan marnay Puntland Saciid Cabdullaahi Deni isaga afkiisa ka yiri haweenkii iyo caruurtii iyo dadkii wax magaratada ay dhan bunaga ka haysta waxa noo soo haray biir xoogaa wax akhriya iyo dad aqoon-yahana waxna kama jiraan anaga aqoon-yahankii reer Puntland waana taageersanahay annagoo aan hal qof iyo laba qof iyo 5 iyo 10 iyo midna ahayne bad ah baan taageersanahay marka xabadaasna waa ka khaldan tahay waxa kale oo ka khaldan yaa idin jiiday oo wax idin taray muxuu idin taray ninkaan wax badan buu taray dawladnimadii Soomaaliya buu soo celiyay dhowr 5 qodob baan ku sheegay oo waaweyn bal horta qabso ciidamadii 10 times buu ka badan yahay ciidanku isagoo waliba organized ah oo tababaran oo biometric laga qaaday oo qofka ay ugu soo dhacaysa lacagtiisu akoonkiisa 25 bisha ciidanka buu horta dhisay ciidamadii Soomaaliya uu dhisay oo si aan caadi ahayn u dhisay oo ka badan yani inta macquulka oo la dhisi karo waa qodobka waad qodobka labaad beesha caalamka oo aad ku sheegtay musiibo iyo mushkilo inay yihiin ninka kaliya oo ka saaray siyaasadda Soomaaliya oo banaanka ka dhigay oo jawaari uu cadeeyay ninkaanu intuu meesha joogay inay dabqaad ka yihiin dabqaad oo dabka u kala qaadaan oo adeegayaal ay u yihiin dawladda farmaajo madaxda Kenya taasna xisaabta ku darso waa labo qodobka saddexaad waa markuu Haysam Cayriyay oo UN oo dhan intay isu tagtay ay damacday inay xoog ku soo celiso yiri no gera nin garanaya waxa uu yahay iyo waxa ay iyagu yihiin beesha caalamku yihiin oo ah inay ajaanib yihiin baasaboorkoodina u tuuro yiri si aan la ii gumaysan xor baanahay waa ninkan qodobka saddexaad hawadayadii oo 30 sanadood Kenya ay haysatay oo ay sanadkii ka sameeynaysa markii ugu yaraato 100 milyan lacag ku dhow marka qaarkood bishii waxa la yiri waa 10 milyan bishii marka qaarkood waa ka badan tahay mar waa ka yar tahay lacag average-keedu 120 milyan 80 milyan inta u dhaxaysa ninka ka soo celiyay hawadeeni oo hadda xamar laga maamulo lacagtaasi ay ku soo dhacaysa xamar waa ninka badeeni oo Djibouti ay qaar haysatay qaarna ay qolyo kale haysteen oo Kenya qaar haysatay ninka soo celiyay waa ninkan halkaas ma ku tahay afar Soomaaliya in deynka laga cafiyo 5 bilyan iyo 300 oo milyan in laga cafiyo ninka ka shaqeeya waa ninkan because of wuxuu la dagaalamay corruption in adeerkiisa ku xiran Muqdisho oo PhD holder ba ku xiran Muqdisho because of corruption horay uma dhicin waxaanu arkaynay 30 milyan baa haysta ku doodaya oo ku faanaya oo miyii ka yimi aan aqoon lahayn dawladii ka horeysay ahay ninkan way ninka corruption la diriray khasnadii mideeyay ay noqotay khasab in dadkii xoolihii ay dadka ku noqdaan oo galaan qofkii canshuur bixiya canshuurtiisa inay u shaqeyso ma amnigiisa ma caafimaadkiisa ma waxbarashadiisa ma noloshiisa ayr baa la bixiya for God's sakes waa ninkan waxa ku xigta oo magaranaysa wax weyn ah oo magaranaysa aan cidina heli karin waa markii ugu horeysay I will say it again markii ugu horeysay awal marra ilaa burburkii laga soo bilaabo aanu aragno Soomaali across the border Hargeysa ilaa meesha ugu shaysa Ras Casayr iyo Ras Kamboni inta u dhaxaysa wadaniyad ka hadlaysa the first time waana wixii aanu propagate garayn jirnay waana kelmadda Allah oo soo noqonaya dadka lagu haysto wadaniyadu inay dhimatay culimada ka masuula kow iyaga ka waa markii aan yani runta u wada hadalno hadaan nahay wadaado waxaanu maqli jirnay oo aan kutubta ka dhageysan jirnay oo hadeer qaarkood duuban yihiin calanka qofkii u istaagaa waa shirki way gaalba way diinta waa ka baxay calanka Soomaaliya qofkii qadariyo weyneeya kaafir way murtad billah diinta waa ka baxay ilaahay cid aan ahayn buu caabuday wadaniyada iyo wadanka in la jeclaado Soomaaliya la yiraahdo in la jeclaado waa qabyaalad waana diin la'aan wadaadadan ka keenay waxaasna diin maaha meelna kuma taalo wadanka in la jeclaado waa diin calankaaga inaad qadarsid waa diin calaamaadka uu dalkaagu leeyahay inaad qadarsid waa diin يعني wax mucjiso ah oo lala yaabo oo khata oo khaldana oo walaadadu ay dadka bari jireen bay ahayd iyadaana ka dhalatay in dadku ay ka cararaan wadaniyadii maxay ku bedesheen marka ilaa insaanku haduu sunna ka tago xadiiska ibn Mas'ud qofku haduu sunna ka tago illa halat makanaha bid'ah
haddii sunna laga tago oo qoladu dadku sunna ka haajiraan waxay ku dhacayaan bidca booskeedii maxaa galay qabyaalad baa gashay DNA-dii Soomaaligu waxay noqotay qabyaalad sheekha marka waxaan rabaa ninkan wuxuu la yimi isagoon cidna la hadlin oo nin hadal badan aan ahayn oo hadda nin cod kara aan ahayn oo kuwaanu ay labaduba ka codkarsan yihiin kuwa kaloo badan oo ka codkarsanna waa joogaan wuxuu ku guulaystay quluubtii Soomaaliyeed buu ku guulaystay waa wadani qofka Soomaaliga ah oo dhalinyarada ah ama macquulka ama waxgaradka ama aqoonyahanka ah meeluu joogaba waa wadani dhowr nin oo iska qabyaaladiistayaal waa xataa wadaadda waxa arkay qabyaaladiistayaal la ordaya hadalladii dadka mucaaradka ah oo kursi doonka oo ay dhici karto inay iyagu ujeedada kale yihiin nimanka kursi doonka inay ninka uun ceebeeyaan waa inaad ninka ceebaysaa si aad adigu alternative ugu muuqatid badiil waa inaad ninka wax ka sheegtaa oo yiri waa fashilmay ma ninka intaa geystay intaa keenay baa fashilmay oo Soomaaliya ay dhismayso oo Muqdisho dhaqaalaha yaala Ilaahay subxaanahu wa ta'ala og yahay makarafoonka lala dhex qaadaa Garowe iyo Boosaaso oo yaa rabtaa iyo Gaalkacyo farmaajo rabnaa bay leeyihiin Hargeysa lala dhex maalintii 1000 qof baan soo wacay sheekh anaga ku warbixinayna oo jooga Hargeysa oo reer Somaliland oo aan ku dhicin inay kor u sheegaan oo calanka hadii la soo baxan la dilay ma ujeeda ninkaana iskale wuxuu keenay ninkani xorriyatul qowl wax la yiraahdo makarafoon isagoo haysta oo hor fadhiya baarlamaanka baa ciyaal suuq aan garanayn dhaqanka iyo akhlaaqda baarlamentarianka ama xildhibaanka iyo mas'uuliyadda baa waxay ku yeeriyaan firimbi bay ku yeeriyaan firimbi miiskay garaacaan bog markaasuu ista dhagaysto hadduu dictator ahaan lahaa dictator iyo hadalka aad sheegaysid oo xukunka isku dhajinaysaa hadduu ninkaan xukunka isku dhajin lahaa kuwaas waa dhiman lahaay aakhiray aadi lahaay sida kuwaanu ay ula dhaqmaan hadduu ula dhaqmi lahaa dictator buu ahaan lahaa hadday sida kuwaanu ula dhaqmaan wariyayaasha farmaajo ha dhaco حتى ما ندوي وحي لها فرماجة هذا أنت دافين بدي مريحان كهذا ماركيسا كلمة موصنة مركا المهم اسكسود وضوب شيخ واكسود ويننا وحن كاربنا إنا قادة قيادة هجان إنا قبستي نهجامي نوقب الزمامك كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كلمة هذا أنت كلم مريض وإنتاس لبدا عنين أو أتشكتيد وحيهين iyo ninkan oo aad ka badbadisay oo aad talaan fiicnayna siisay oo inuu iscasilo wax weey tanaasulo dadka uga ta kursiga isku dhajin say isku dhajiyay kursiga ninkan waa la doortay cid ka qaadana waa la yahay in laga qaado raba kursiga waa la doortay wuxuu leeyahay warkaalay kursiga iga qaata mana ka qaadi karaan oo way ogyihiin cidina rabin marka waxay leeyihiin walqaw fihi la'allakum taghlibun in sheekh nin aqli badan baa tahay nin inta fahmi karaata waad ogtaa marka waxaan ku leeyahay xoogaa ugala dhow intaasoo aad ugala sii dhowaatid maan dhow waa intaasoo aad ugala sii dhowaatid buu ku yiri odayga wiilkiisii sheekh taasaa lagaa rabaa intaasaa kaa maqan khudbadaada waxaa dhaawacay waxay ahayd labadaa nin oo aynu inagu tolka nahay oo aadan marna soo qaadin iyaguna ah sababta meesha jirta mushkilada meesha jirta dusha lagama maro boogta bannaanka lagama dhayo waa loo dhacaa dalaq iyadaa la daaweeya labadaa nin boogta Soomaaliya ku taala labadaa nin inaad u dhacdaan kaa rabaa oo tiraahdo next time intaad waliba diyaarad qaadatid oo Garowe tagtid warqadii inaad ka soo saxiixday adigu saxiixdani diyaaradaada aad toos ula gudubtid oo Kismaayiil tagtid oo aad Axmed Madoobe ka soo saxiixdid aad xamar keentid meelshii aad isugu yeertid inay yimaadaan dadkii ergooyinkii doorashadii la bilaabo adigu aad qiyaado ka noqotid hormuud ka noqotid and you can do it respectigaasna waa ku haynaa waana ku siinaynaa أنا وحن كوبا لقاضي نكانوا إنه كايلو هذا الكهذا عن ليه بل أدو لا يمو قضب كاس أنا إذن ده قلي يده نكانوا إنه كايل أنا كوبا لقاضي إنه كو تناسلنا أنا كوبا لقاضي لبدا أدو ككين أدو لبدا ككين لبدا إن المعذير تانا أدو ككين كان أنا كوبا لقاضي I swear to God أنا كوبا لقاضي في يدك شيخ في يدك كأنت أدو كجرا أنا كوبا لقاضي إنه يسوك أديبه المعذرتين ككين هذا ككين ويد هذا إلهي سبحانه وتعالى وكوكو أدون صبي وإذا قلتم فعدلوا هذا واجب مركا هاد ليس شيخ عدالة بالغاربة رجعوا عدالة سماء جور لما أقرأ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إلهي سبحانه وتعالى أقبق مسج يفرين نمن كان ينين كان عدالة السماء هو كلا هيلين وهذا هو الحنتا قبيلة لغو حنتا إني في غبادي كما تلتقى لغو حنتا رجعان هو كلا هيلين عدالة إلهي هذا يتقان وأنا عدها ومدنا وجدها أدنى مقران سا شقادة هذا بلودي سيسا ودي عسوبين هري وصوقل قادو مكان القيادة زمام الأمر كعنت كوني هذا إسكالي فردوا إلى الله والرسول رسولك ألا مكان كيسيجو يا شيخ ماذا حادنا أصارنتها يا سومالي أنا قلنا ماذا حادنا أصارنتها قبصو قيادة أنا كان كوبا لنقاضي إنو إسوكا ديبو لبدان كاكين أنا لما ديرتنا كاكين هذي حريه وكويليا هذي سن حرة هينا ويكو عدان دونتا هذي كويلان نواني من حرة ومدح بنان وصومالي نيو كوتشيرتو ووح خلدنا أي جيران وأدعوكو سيحي دونتو وإلهي سبب كاغا ديجي دون موجودة مكانك تصالي هداي آد قادتي هل كان قلي أدوكو نقو حسن أدوكو أمد تنازل أدوكو حالك الرادي حالكو لبدا نيمبو كوحرين ياي كسو سار ياي كسو قاد كعنتو دوكو جيران هداي أقولادان دورشا إناي دعدو دورشا دا بريبا لقليا لبدي قبلو أقوى وينابا هايستان من أقولو دورشا إناي دعدو صدح دي مامول قبليدو كلوا أقولادين كدبنا أن كفكرنا سيدي أن مامول قبليد دالك أوغا ساري لحين ودالكو فدرال عادي أو نقول لها أو قبل والبا إسكي أوغو مدح بنانان لها أو غفرنر ويالان لها مركا إنو كو حجينو شيخ مركا كوان وكسودو وينينا وانا كفر حي أو والله إنا تسوق شيء وهو شفرها لك شيء وكفر حسن هاي نين معنلات هاي نين قيمالات هاي صومالي مدح هادو سارنت هاي أنا مدح هادي سارنت لكن دادع كاي يلمين توسوغل تقصيرنا كاي يلمين كبد بيغا تاي تم إنا كوبوس بريتار بيغا تاي بريتار كوربان كو قادية سو قبسو شقدا كرسيغا سو قبسو ميكروفونكا قبسو إدي كامي حيكتو ما أنت أو كلوا مالنتي أنا لها لأورنجري عد كا حيكتا مالي ألا إسكالي ما أنت مالنتا دي وي شيخ أديغا إيو علمادا كلو إمقلي سبا قد يدان أقاتا سيسيرياس حمر تقع كقادة عد إنو إذن أقبليو وهي أوغو يسان وقادانيو وتقع لبدانين صدح دانين با أرنتو كدا حيسا قولada صدحات لا محل لهم من الإعراب مسؤولية هيان وكفر سنيان ميسكا ما jirto xukun doon way xukun doonkuna kaligood ma hay waa 100 qof wax ka badan aniga ku jiri kara adaa ku jiri kara sheekh marka albaab hadii la furo aan xirmi karin way marka iyaga iska reeb shacabka ku saaray shacabku la yuqadim wala yuakhir cid wax weydiinaysa ma jirto hadii wan ma wan food la aado shacabku waa codaynayaan waxaadna ogaan doontaa qofka ay rabaan waana ku sheegaya guarantee 80% haduu ku baasi way 80 haduu ku baasi way waxaan ku sheegay waxba kama jiraan boqolkiiba 80 haduu heli way intaad cod ka qaadaan muqdisho garowe kismaayo dhuusamareeb magaranaysaa jawhar baydhabo inta maamul goboleeda intaad cod ka qaadaan hadduu boqolkiiba 80 heli waayo waxaan sheegaynaa waxba kama jiraan soomaaliya waa dhaqaaqday in yar bay u baahan tahay oo baritaara sheekh shaqada tallaabada aad qaaday waa khutwatun ala sawaab خطوة إلى طريق الصحيح هكسو نقول حري وتغنتخوض هدار تسيو كف وأنا خصب وكفة يساوي وعسبيهن مركا قفك أريدتكو عصبتها هنا دعوة اسكترية تولكن أوبرير يجا هذا الصومالي كده قاقي لا ده هاي تولكن يأهلكن أوبرير السوقاوي دركا كبحي نينكا اسقرين يا صوصار المشكلة ماشي ترتهل سومالي قول بيقاريسا تاريخ ذات جليسا وحاد نقونيسا سيد كي لباد وحاد جليسا تاريخ ذا سيد كي لباد او سومالي بدبادين يباد نقونيسا موادين باد نقونيسا وداني دبأه باد نقونيسا إلى هنا وكو كرامين يا سوماليين عزي كوغو هين سايا الشرف انت سان شيخ أورانيا وحيغا كليلو عدرينتي ودانياد حوق لانو جيرتا دالكيني بربر با هايستا عدو aad u badan baa nagu soo duulay hadaan la iskar baashin oo aan la iskar karin oo qofkii khaldama aan si kulul loola hadal meesha arintu meel hoosay si aadaysa
intaasaan marka ku gabagabaynaya haddii wax kulayli ay ku jireen sheekh saamixna سامحكم الله ما أقول هذا ما أصبت فمن الله والله سبحانه وتعالى له الشكر والمنة وحان أصيبي إلهي باكم هاتسن وإيقا خلدمين والله ورسوله بريئان منه وهو من نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.